السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب يال وباشا تقدر channel كذا ونسا وباشا فيكس يوتيوب كذا كعصوبة إن شاء الله سبسكرايب صار داهوري وشوفتنا وحوي لايك and share أصحاب هذا اللي ذاك إن شاء الله حاول حنكهل لنا فلانقين السوق إن شاء الله. فلانقين السوق وحوي عاوة لحقو بايرس سوق وحمود إنه بحني أسبوع عن فرصة بدن maadaama asbuucii dhaweyd xoogaa uusan bixinayn fursado waaweyn balse waxa weeye asbuucan waxaan is leeyahay suuq wuxuu bixinayaa insha allah fursado fiican. Insha allah waxaan ku bilaabayaa falanqeynteena caawa suuqa DXY oo mar walba waxa loo baahan yahay asbuuc waxa weeye markuu dhammaado in aad samaysid waxa kan yiraahdo in aad samaysid falanqeyn aad samaysid waa kasoo bilowdid DXY mar walba waxa weeye aad jihadeeda heshin waxa kuu fududaanaysa waxa weeye lacag kasta oo kale in aad jihadeeda aad sii garatid. maxaa yeelay DXY waa suuq waxa weeye waa furaha suuqa aan dhihi karnaa. DXY asbuucii dhaweyto saan la wada soconay waxaan u saadaalinay in ay tahay DXY inay sell short term sell ay tahay kadibna waxa weeye ay tahay long term buy. short term sell long term buy waa u saadaalinay. waxaan kasoo bilaabayaa daily time frame baan kasoo bilaabaya insha allah. waxaan fiirinaynaa meesha waxa kan yaada lacagtan waxaan haddaan naga tirtiro oo kale weekly time frame haddaan kasoo bilaabo oo kale mar walba waxaa loo baahan yahay inaad kasoo bilowdo time frame ka weyn oo weekly time frame ka waxaa kuu muuqda in lacagtan ay jebisay lacagta dollarka ay jebisay channel ah down trend ama trend line down trend ah hadduu jabana maxaa ku xiga in suuqa waxa weeye jihada uu bedesho oo uu aado magaranaysaa uu buy aado. marka insha allah dollarka waxaan rajaynaynaa sanadkan oo dhan inta ka dhiman insha allah buy uu kusii socdo laakiin dee fursado sell ah fursado buy ah fursado sell ah laga sii cuni karaa mar walba waxa weeye balse fursadahagu waa inay u bataan mar walba dhanka waxa weeye buy-ga insha allah. dollarka waxaan ka sugaynaa insha allah fursad buy ah. marka maadaama dollarka fursad buy aan ka sugayno lacagaha kalena maxaan ka sugaynaa fursad sell ah long term ah. marka dollarka waxa weeye waxa ujeedaan xataa channelkan uu ku jiray magaciisa in la yiraahdo failing wedge baa la dhahaa waxa weeye afka hore waxa weeye u weyn yahay afkan dambena waxa weeye u dhuuban yahay. marka waxa kan yiraahdo dollarka intaa markaa aragtay kadib dollarka waxa weeye wuxuu ku socday waxaa la fiirshaa mar walba waxa weeye in suuq jihadii u bedeshay keliya trend line lagu qiimeeyo oo mararka qaarkood waxaa dhacda suuq trend line intii lagu jebiyey lacala asagoo saan oo kale ah trend line-kii in trend line inta lagu jebiyo in waxa weeye trend line inta lagu jebiyo trend line down trend ah suuq ku jiray ama channel waa la jebiyey kadib suuq waxa laga yaabaa inuu kugu soo kala wareego mararka qaarkood. marka taasoo kale maxaa ku ogaan kadhaa suuqu haddii aragtay channelkii inuu jebinayo qaab corrective haddii aragtay inuu suuq channelkii qaab corrective u jebinayo aad aragtayna waxa weeye suuqu inuu ku jebiyey trend line-kii suuqa ma waxa u qaadanaysaa buy ma sell baa u qaadanaysaa suuqa waxa u qaadanaysaa sell maxaa yeelay suuqa wuxuu ku sameeyey ama uu ku jebiyey meeshii waxa weeye qaab corrective ah. marka waxay noqonaysaa trend line-kan ma ahan trend line saxan ama wuxuu u baahan yahay inaad update garaysid oo ilaa halkaasoo kale meesha uu reversal ka sameynaya aad dhigtid. marka mar walba waxa weeye trend line-ka haddii lagu jebiyo suuqa waxa weeye qaabka uu ku jebiyey waa inaad sugaysaa hadduu suuqu qaab corrective uu ku jebiyey suuqa ha ka raadin oo meelahan kale intaa zone dhigata hadhihin zonekana waa test baa igu sameeyey maxaa yeelay suuqu qaabka uu ku jebiyey trend line-ka waa qaab corrective. sidoo kale mar waxaa dhacda suuqu waxa weeye inuu ku jebiyo inuu trend line-ka ku jebiyo qaab impulsive saan oo kale hadduu ku jebiyo marka waxaa xaq u leedahay ama waxa weeye kula qumanba in aad retestiga aad ka sugtid zonka oo kale suuqu markuu impulsive ku jebiyo waxaa kuu caddaanaysa inay tahay real kala wareeg caadiya inuu meesha ka dhacay ama kala wareeg saxan inuu meesha ka dhacay kadibna waxa weeye retestigaas unbaa ka qaadanaysaa ilaa waxa weeye ilaa wax fiicanna waa la soconaysaa ama targetkaaga intii lagu gaarayo. marka mar walba waxa weeye waxaa fiican suuqa trend line-ka haddii lagu jebinayo qaabka lagugu jebiyey inaad ka fikirtid. marka dollarka waxaan ujeednaa sidoo kale inuu jebiyey zonkii markuu jebiyey DXY zonkii ay jebisay maxaa dhacay
waxaan tegaynaa low time frame daily time frame kan tegaynaa zoonkii marka qaab noocee lagu jebiyey zoonkii qaab waxaa lagu jebiyey imbalance waa maxay suuqu wuxuu ku jebiyey qaab imbalance haddii halkaan oo kale ay noqon lahayd waxa weeye saan oo kale ay noqon lahayd shaki baa ku geli lahaa in lacagta ay soo sameynayso maxay hayto reversal soo sameynayso waa dhihi kadhaa waxa weeye halkaan waa corrective waa dhihi kadhaa waa qaab corrective ah laftigeeda haddii waxa weeye aad baatankaan oo dhan fiirinaysid waa qaab corrective waa dhihi kadhaa qaab corrective laakiin corrective-ku halkaan uu ahaa halkaan baa la rabay suuqu inuu kasoo sameeyo reversalka maadaama 1 iyo 2 iyo 3 ay ahayd laakiin momentumka uu ku jebiyey meeshaan waxa weeye mar walba trailing lagu jebiyey momentumka lagu jebiyey meeshaan waxay ahayd qaab waxay ahayd imbalance marka haddii last momentumkan uu noqon lahaa qaab corrective kadib risk entry-ga 1 iyo 2 iyo 3 gaasi qurux badan baa usoo qaadan lahayd kadibna waxa weeye long term baa la socon lahayd laakiin qaabka lagu jebiyey waxa weeye qaab imbalance ba suuquna waxa hadda uu samaysanayo waa qaab wax moodaa inuu ku jiro corrective kadibna waxa weeye in siiqa uu sii socon doono marka dxy insha allah waxaan ka rajeynaynaa in ay sii socoto fursad bay marka waxaan tegaynaa 4 hour time frame-ka 4 hour time frame-ka waxaan fiirinaynaa meesha ugu saxsan ee suuqa laga geli karo waxa meesha ugu saxsan oo suuqa laga geli karo waxa weeye suuqii testigii wuu sameeyey laakiin waxa moodaa in uusan pattern ahaan weli u dhamaystirnayn maadaama patternkan uu yahay pattern continuation ah in suuq waxa weeye weli wax u dhiman yihiin suuqan maxaan ka rajeynaynaa inuu sameeyo in mar labaad zoonkan lagu soo laabto haddii xataa kan aad zoonkan aad tirtid sidoo kale zoonkan tasi lagu sameynayo mid caadi ah oo nadiif ah 4 hour ka soo wareegtid halka waxay ku noqonaysaa meel ma garanaysaa demand zone ah bay ku noqonaysaa marka meeshaan waa meesha aan isleenahay suuq wuxuu ku sameynayaa waxa weeye mar labaad buu ku soo laabanayaa marka dollar index haddii halka uu yimaado insha Allah waxa weeye fursad long term buy ah insha Allah ka raadsan kartaa short term sell-kaas waxa weeye waxba hadda rabtida ku furin ma waa ka faa'iideysan kartaa si scalping oo kale haddii 1 hour oo kale aad tagtid oo kale halkaas pattern oo kale aad ka raadisid oo kale waa ka faa'iideysan kartaa why not maxaa yeelay meelahan oo kale trend line dhiganaysaa trend line baas u dhiganaysaa halkaana waxa weeye trend line kale halkaan oo kale trend line baa authority dhiganaysaa saan oo kale kadib waxaa sameynaysaa oo kale trend line ka marka lagu jabiyo kan marka lagu jabiyo sidoo kalena waxa weeye zone kana lagu jabiyo tastigaas oo kale aad heshid saa marka lagu soo jabiyo kan haddaan dhigto haddii trend line ka bila zone ka lagu soo jabiyo kor lagu laabto oo kale short term sell-ka waa ka faa'iideysan kartaa insha Allah haddii kalena waa suuqa dhaa waxa weeye inta halka lagu imaanayo insha Allah long term buy baa ku jira marka dxy waxaan u saadaaliyay inay tahay long term buy short term yaro sell insha Allah waxaan ku xijinayaa insha Allah suuqa asbuucan fursado fiican bay leeyihiin lacagaha dhan lacaga jeeb waayada fursado qurux badan bay leeyihiin eurada laftooda fursado qurux badan bay leeyihiin suuqa asbuucan ma sha Allah waxaan isleeyahay waa asbuuc u dhaqaaqi doono si fiican qof walba uu ka faa'iideysan doono insha Allah waxaan ku xijinayaa euro USD euro USD horta suuq waxa moodaa in uu ku furmay qaab gaab ah gaabka mar walba suuq uu ku furmana suuq badanaa isniinta waxa weeye wuxuu galaa inuu gaabka u buuxiyo oo kale inuu iska meeraysto oo kale marka waxaan dhihi lahaa insha Allah taxadirka inuu habato marka kan euro USD haddaan fiirino oo kale euro USD waxay ku socotay euro USD ayada waxaan u saadaalnay short term yaro buy kadibna long term sell euro USD maadaama dollarku uu xoogeystay oo kale anigu waxaan islahaa waxay sameynaysaa halkan waxay ka sameynaysaa baatanka noocaan oo kale ah oo waxa la aadayaa ma garanaysaa kor oo buy baa la aadayaa laakiin kadib dollarku momentumka uu sameeyey iyo soo kabashada cajiibka ah waxaan isleeyahay waxa weeye lacagtan in ay buy aado oo baatankan ay ixtiraamto waxay kaga badan tahay in ay ixtiraamto baatankan kale oo asaguna ah head and shoulder oo inay soo dhacdo halkan ay noqoto garab ay noqoto waxaan ay noqdaan madaxii lacagtan soo dhacdo garabkan kale ay buuxiso kadibna waxa weeye saa ay ku sii dhacdo oo ay noqoto waxaan ay noqdaan reversal pattern marka aan leeyahay waa garabkii waa madaxii waa garabkii kale waa wax kale madaxii waa garabkii kale saa loo dhameystiro insha Allah suuqina marka waxa u badinayaa in lacagta
dollarku waxa weeye ay noqonayso waxaan ka wadaa lacagta euro USD ay noqonayso sell insha Allah iyada laftigeeda inta sanadkan ka hadhay insha Allah waxaan u saadaalinayaa sell insha Allah cajiib ah ilaa meelahaas oo kalena in la tago way u badan tahay insha Allah marka zoonka aan sell kaga qaadan karno waa kee suuqan waa ujeedaan wuxuu soo kala gareeyay zone aad iyo aad u adag zoonkan waa zone aan isleeyahay lacagta waxay kasoo samayn doontaa insha Allah reversan waxaan tegaynaa 4 hourka xagee waxa weeye lacagtan hadda waxa weeye ay ku wajahan tahay sidaas looga faa'iideysan karaa hadda waxaan moodaa inay ay continuation pattern diyaarsanayso continuation patternka waxaan ka haysanaa laba taabasho waxaan ka sugaynaa insha Allah taabashadii saddexaad taabashada saddexaad halka in ay buy tahay waxyaalaha ku saacadeynaya waxaa kamid ah maadaama meeshan ay tahay zone suuquna waxa weeye uu joogo meel demand zone ah so qaab corrective ay tahay halkaana lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 halkan waxaa lagu yimid 1 iyo 2 iyo 3 weeye 1 iyo 2 iyo 3 ga in la ixtiraamo insha Allah kadibna waxa weeye saabay lagu aado halkan suuqu impulsive yar ka samaysto meesha correction yar uu ku galo kadibna waxa weeye impulsive kale uu samaysto halka waxa weeye kadibna aad corrective ka heshido halka waxa weeye long term sell ay soo qaatay insha Allah marka lacagta euro USD waxaan ka sugaynaa insha Allah in ay patternkan ixtiraamto 1 iyo 2 iyo 3 ga 1 iyo 2 iyo 3 baa ku jira marka inay patternkan ixtiraamto ay saa waxa weeye buy ku aado kadibna halka markii la tago aad ka heshid 1 iyo 2 iyo 3 aad ka heshid kadibna waxa weeye long term sell ay soo qaatay insha Allah marka lacagta dollarka euro USD waxaan ka sugaynaa insha Allah fursadaas fursada quruxda badan baan ka sugaynaa in ay nasiiso short term buy in ay nasiiso short term buy and waxa weeye long term sell insha Allah marka targetkaaga koobaad oo kale waxa uu noqonayaa oo kale impulsive hore mid la eg insha Allah marka waxaan is leeyahay oo kale lacagta intay soo dhaqaaqday oo kale in la mid ah oo waxa weeye ku beegan meesha neckline-ka inay dhaqaaqi doonto insha Allah marka waxaan rajeynayaa lacagtaasna in aad ka faa'iideysataan sidoo kalena halkan xataa trend line down trend ah ayaa meesha ku jira waxaan is leeyahay trend line-kaas way buuxin doontaa insha Allah waxaan ku xijinayaa lacagta la yiraahdo GBP USD GBP USD waa maxay fursadda aan ka sugay GBP USD fursadda aan ka sugayna waxa weeye haddii ayadana aan noo clear gareeyo kadibna waxa weeye aan tago weekly time frame-ka lacagtan waxaa ujeedaa in ay samaysanayso in ay joogto area ay kasoo laaban karto maadaama areadan oo dhan halkan oo dhan ay tahay reversal area marka insha Allah waxa weeye lacagtan insha Allah lagu hayo waxaan is leeyahay waxa ku jira fursad cajiib ah halkaas 1 iyo 2 iyo 3 way ahayd laakiin waa la beeniyay iyadoo la rabay in la buuxiyo meeshan oo ah zone aad u adag marka waxaan is leeyahay zonekan already waa la buuxiyay daily time frame-ka haddaan tago oo kale fursad nooc ayaa ka muuqata daily time frame-ka waxaa ka muuqata fursad ah daily time frame-ka waxaa ka muuqata fursad waxa weeye qurux badan masha Allah fursadda qurux badan waxa weeye trend line baa halkan ku jira trend line-ka waa la jebiyey trend line-kan waa la jebiyey insha Allah waxa weeye fursad qurux badan baa ku jira qaabkan uga faa'iideysanayna marka waa maxay qaabkan uga faa'iideysanayna waxa weeye suuqu mar walba waxa weeye uu soo samaysto 4 hour haddaa aragtid ama daily time frame suuqu inuu soo samaysto impulsive kadib candle rejection meesha uu ku sameeyay suuqu meelahaas unbuu ku laalaabanaya continuation ka samaysanaya kadibna waxa uu sii daadanaya marka lacagtaas anigu buy waa dhihi lahaa haddii halkan impulsive ka dhacay correction meeshan waxa ka dhacday waxa weeye wuxuu suuqu samaystay demand zone kadibna buy uu ka aaday uu kusoo laabtay halka wax macnaha buy ah hadduu iga muuqan lahaa oo la isku halayn karo buy-ga waa u qaadan lahaa suuquna mar walba waxa loo baahan yahay markuu isbedelo adiguna inaad isbedeshid suuqa adigu iskama xukuntid wejday maran halkan buy uga saadaalinaynay oo buy masha Allah aan ka cunay boqol iyo xoogaa bib kadibna waxa weeye aan isaga harnay maadaama suuqu uu samaystay halkan uu magaranaysaa aan aragnay suuqa inuu ixtiraamayo areadan uu samaystay marka GBP USD fursad waxaa ku jira qurux badan oo sell ah marka sellka xagee uga qaadan karnaa iyada laftigeeda sellka waxaan uga qaadan karnaa meesha waxa ka muuqda head and shoulder baa meesha iga muuqda aniga
xogaa buy in waxa weeye lacagta ay aadi kadho waan u badinayaa insha Allah in waxa weeye xogaa buy ay aado laakiin ma ahan buy badan waa buy short term buy long term sell weeye insha Allah lacagtan halkan ayada lafteeda waxay ka samaysatay pattern qurux badan oo continuation ah patternka continuationka laba taabashan ka haynaa suuquna mar walba waxa weeye uu soo dhaco sellku uu soo dhaco continuationka badanaa waxaa laga tiriyaa sellka ah korkaasaa laga tiriyaa suuqu inuu soo samaysto korkaas 1 iyo 2 iyo 3 oo kale ama double top oo kale inuu soo samaysto xaggaasaa laga tiriyaa taabashooyinka hadduu suuqu waxa weeye buy uu yahayna waxaa laga tiriyaa hoos oo suuqu inuu continuationkiisu ilaa laba taabasho hoose ah ka haystay ama saddex taabasho hoose ah ka haystay markaas oo kale laga tiriyaa marka waxaan is leeyahay GBP USD waxaa ku jira fursad short term buy and long term sell insha Allah halka marka in suuqa wax weey laga kaxeeyo in waxa weeye halka continuation uu ka siiyo asii raacda darabtid kadibna waxa weeye suuqa uu ku tago taabashada saddexaad markuu tago maadaama ay tahay 1 iyo 2 waxaana ay yihiin large middle section halkan uu ka soo dhacay continuation impulsive waxaan ay middle section iyo continuation yihiin kadibna waxa weeye halka la taabanayo marka ani ahaan waxaan is leeyahay lacagtan waxa weeye in ay halka gaarayso in ay meesha gaarayso kadibna waxa weeye long term sell oo soo qaadan doonta insha Allah marka GBP USD meesha ay taagan tahay waa meel aad u adag waxaan is leeyahay baayigaas ay soo dhamaysanaysaa 1 iyo 2 iyo 3 kadibna waxa weeye waa la soo raaci karaa insha Allah Abdullaahi waxaan ku xijinayaa lacagta golliga fursadda aan ka sugayno waxa weeye waa maxay golliga maasha Allah fursad buy aan ugu jirnaa fursadda buygaana waxa weeye hadda waxaan moodaa candle inuu soo dhacay momentum ah laakiin TB1 oo kale maasha Allah waxa weeye boqol biyo oo kale TB1 waan ka haysanaa insha Allah TB2 ilaa TB2 waa noo furan yahay haddii uu naga saarana waxa weeye mar walba break even baan nahay boqol biyo oo TB1 waa ka xirnay insha Allah laakiin kulliga fursadda ku jira haddaan sala fiirino oo kale kulliga fursad qurux badan baa ku jira maasha Allah kulliga waxaan is leeyahay kulliga fursadda ku jira waxa weeye waxaan is leeyahay kulligu soo dhacay 4 hour zonka oo kale haddaan sawirano 4 hour zonka waa halkan weeye meeshaan meel aad u adag runtii suuquna waxaa moodaa in uusan hit garayn halkaana ay ka jiro halkaana waxaa moodaa continuation inuu meeshaan ka muuqdo aad moodaa marka aniga waxaan is leeyahay golliga laba wadaba waa ka bannaan tahay golli laba wado labadaba insha Allah way ka bannaan tahay wadada ka bannaan golli waxa weeye wada seelana way ka bannaan tahay wada bayana waa ka bannaan tahay wadada seelka oo ka bannaanaan kara waxa weeye head and shoulderkan inuu ixtiraamo garab iyo labada madax inuu ixtiraamo kadibna waxa weeye golligu uu sii daato haddii sidoo kale waxaa macquula in golli uu gaaro zoonkan qaab corrective lagu tago kadibna waxa weeye fursad long term sell aan kasoo qaadano haddii kalena golli mar walba zoonka waa laga rabaa inuu yimaado waa wax masti ah inuu yimaado ana waxaan is leeyahay golli ma sii daadanaya isagoon imaan zoonkan marka 1 hourka oo kale haddaan tagno 1 hourka oo kale suuqa hadda waxaa moodaa in uu ku jiro halkan qaab correction waxaana impulsive ay yihiin waa macquul golli inuu sii sameeyo impulsive sell uu sii sameeyo kadibna waxa weeye large aad trailing oo kale aad tukisatid oo kale kadibna aad evolving azamaysid oo maxaa markaa ku muuqanaysa waxa ku muuqanaysa in uu patternkan ixtiraamayo oo kale expanding meesha uu ku jiro oo golli impulsive soo sameeyay waxaan waa correction in waxa weeye continuation u yimaado hadhow patternkan waxa weeye 1 iyo 2 iyo 3 gaas uu ku ixtiraamo 1 iyo 2 iyo 3 gaas kadibna waxa weeye uu saabay ku aado kadibna hadhow waxa weeye long term sell soo qaadatay waa macquul waa wax macquul maadaama hadda candle momentum uu furmay oo kale waxaan is leeyahay trailinka marka waxa loo baahan yahay trailinka mar walba in update iska dhigtid trailinka hadda suuqu inuu sell u soo daatay update iska dhig oo halkan maxaa ku muuqanaysa in suuqu ku jiro pattern expanding ah halkan laba taabasho ka haystid waa maxay 1 iyo 2 kadibna waxa weeye impulsive baa soo aragtay waxa waa continuation another impulsive inuu dhaco
kadibna waxa weeye halkaa 1 iyo 2 iyo 3 ay noqoto saas uu bay u aado 1 iyo 2 iyo 3 halkan kasoo samaysto 1 iyo 2 iyo 3 kale soo samaysto kadibna waxa weeye soo dhaco suuqii waa mid macquul ah marka mar walba waxa loo baahan yahay adiga inaad noqotid inaad update noqotid seelkaasi uga faa'iideysan kartaa marka baatankaas seelka oo hadda soo dhacday si uga faa'iideysan kartaa waxa uga faa'iideysan kartaa wax kale maaha trailenkaaga soo qaado correctionkan waxa weeye labadiisa dhan ka saaro correctionkan labadiisa dhan baa saaranaysaa labadiisa dhan markaa saaratid maxaa samaynaysaa sidoo kalena maxaan samaynaa mar walba annaguna waxa weeye mar walba waxaa calaamadsanaa zoonka sidoo kalena zoonka lagu soo jebiyo zoonka haddaan lagu soo jebin wax trade meesha kama jiro in zoonkan lagu soo kala gelayaa kadibna testigaas waxaa ka qaadataa ilaa waxa weeye ilaa halka meeshaan sheegin inuu ka faa'iideysan kartaa oo ah 1 iyo 2 iyo 3gan ay markaa u baahan tahay suuqu inuu ixtiraami doono ka faa'iideysan kartaa intaas oo kale imisa bib baa ku jira intaan oo kale inta bib ku jira waxa weeye golliga markaas kale waxay noqonaysaa 200 bib marka 200 bib waxa weeye ka badan ma sha Allah haddii kale fursad waxaa samayn kartaa buy ana ka raadsan kartaa fursadda buy ka raadsan kartaa waa goorma fursadda buy ka raadsan kartaa waxa weeye haddii suuqu uu jabiyo meeshaan areadan uu ku laalaabtay hadduu jabiyo bartaan uu ku laalaabtay hadduu kor u jabiyo suuqa hadduu halkan kor u jabiyo uu ku sii yartastiga ilaa halka waa ka faa'iideysan kartaa insha Allah marka long term sell baa soo raacaysaa kadibna marka insha Allah goldina labada dhanba uga faa'iideysta haddii kalena dhankan mar walba waxa weeye waa iska xoogaa baygan halka haddaa ka qaadato kale ilama qurux badna inaa halkaas sugtid baa fiican areadan maadaama uu reversal kasoo samayn karo double topka marka waxa weeye seelkaas insha Allah mar walba isha ku haya fursadda seelka labada dhan miduu ku siiyo hadduu meeshan ku jabiyo suunkana ku jabiyo seel u qaata haddii kalena halka uu ku tagana waxa weeye long term seel soo qaata insha Allah marka waa ku dheeraaday baan u malaynayaa waana ku dheereeyey US30 fursadda ku jira US30 fursad qurux badan bay samaynaysaa laftigeeda US30 fursadda ay samaynayso anigu waxaan isleeyahay daily time frame oo kale markaad fiirisid US30 waa lacag aad u fiican anigu waxaan kula talin lahaa qof walba inuu trade gareeyo waa lacag akoonkaagu hadduu yar yahay xataa 0.01 baa ku geli kartaa waxweeladka ugu yar baa ku geli kartaa hal mar baana waxaa ka qabanaysaa faa'iido fiican baa ka qabanaysaa waxaa laga yaabaa in faa'iido badan ka samaysid sidoo kale riskigeedu waa badan yahay laakiin 0.01 waxba kaa dhimi maysa haddaad ku trade garaysid marka hadda already 4 hour kina way dhamaystirday markaas oo kale trailinka marka ku wareegido kale oo iska dhaafay gibiisa faraha laga qaadaa markaas kale waxa lagu xisaabtamaa zoonka halkan maxaa zoonka waxa weeye waa zoon cajiib ah zoonka waa mid ay buy ka aadi kadho oo laga yaabo inay buy aado sidoo kalena waa mid ay jibin kadho nartas lagu sii kadibna la sii daadan karo marka anigu waxaan isleeyahay zoonkan waa meel ay buy ka aadi kadho US30 zoon aad u adag bay joogtaa fursad buy ah baa ku jiraan isleeyahay lacagta la yiraahdo US30 already halkan waa la isticmaalayba testiga waa la soo isticmaalaa waana laga soo qadiyay marka hadda fursaddii waxa weeye waxaa taagan ahayd fursaddii bayga ahayd baa taagan marka insha Allah fursadda bayga haddii halkan corrective yar lagugu yimaado meeshan qaab corrective for 15 minutes ama 5 minutes oo kale si lagugu jabiyo testiga waa kasii qaadan kartaa insha Allah fursad baya ku jira ilaa waxa weeye targetka koobaad imisa bib weeye haddii halkan la yimaado waa iska 700 bib laakiin meelahan oo kale zoonkan oo kale asna waa zoon adag meeshan oo kale ilaa 500 bib ka faa'iideysan kartaa insha Allah haduu ilaahay waxaan ku xijinayaa lacagaha la yiraahdo GBP buyers fursad qurux badan baa iyaga laftooda ku jira GBP kad baan ku hormaraynaa xataa 4 hourka ama daily time frame kan kasoo bilaabaya insha Allah daily time frame waxa ujeedaa in suuqu u samaystay la tirtiro waxaan oo dhan
in trend line la soo jebiyey down trend ah qaab corrective loo soo jebiyey sidoo kalena waxa weeye maasha allah zoomkiina waa lagu daray zoomkiina sidoo kale waa lasoo clear gareeyey qaab weliba head and shoulder lagu soo jebiyey kadib waxaan tegaynaa 4 hourka 4 hourka meeshaas qofkii si laga soo qaatay faa'iido fiican buu ka qabtay mar labaadna waxaa muuqata suuqu inuu sameynayo fursad kale fursadda kale oo uu sameynayo 1 hourka haddaan tagno oo kale daily time frame-ka aan zoomka si fiican soo sawirano zoomka saxda ah kan meeshaan wey zoomka saxda ah kadib marka aniga waxaan isleeyahay mar labaad in meesha lagu laabto zoomka lagu laabtay u badan tahay oo lasoo sameeyo 1 iyo 2 iyo 3 marka lacagtan haddii 1 iyo 2 iyo 3 ga halka qaab corrective lagugu tago waxay noqonaysaa 1 iyo 2 iyo 3 fursad waxa weeye si aad qurux badan kasoo faa'iidaysan kartaa insha allah sidoo kale lacagta la yiraahdo GBP USD ayadoo soo sheegnay GBP AUD fursad buy ah ku jira laftigeeda fursadda buy-ga waxa weeye daily time frame-ka haddaad tagtid oo kale daily time frame-ka waxaa ku muuqda lacagtaas inay soo samaysay impulsive ay samaysay waxaan corrective ay yihiin another impulsive uu ku xigo lacagtaasna waxa weeye la geyn doono ilaa iyo waxa weeye meelahan oo kale eriyadan oo kale la tegi doono marka lacagta insha allah isha si fiican loogu hayo fursad aad u qurux badan baa ku jirta halkan suuqu wuxuu ka sameynayaa corrective guys waxaa moodaa in suuqu halkan uu ka sameynayo corrective marka suuqu wuxuu soo sameeyey impulsive uu sameeyey waa correction in waxa weeye another impulsive uu sameynayo waxaa ku sii cadeynaya suuqa inuu buy aadayo baatanka meesha uu ka sameysanayo oo ah head and shoulder kadibna waxa weeye barta waxa weeye risk entry qof ka qaadanaya lacagta waxa weeye waa lacag furan waxayna samaysay head and shoulder waxaana ku jira waxa weeye maasha allah fursad aad u qurux badan oo buy ah marka lacagta waa lacag laga faa'iidaysan karo GBP AUD sidoo kale GBP NZD ayada laftigeeda waa badan tahay laakiin GBP CAD iyo GBP AUD iyo GBP USD GBP CHF ayada badan iga muuqdaan maadaama halkan corrective xoogaa folxna ay ku jirto marka waxaan ku xijinayaa lacagaha euro buyers maasha allah euro AUD fursad aad u qurux badan baa ku jirta ayada laftigeeda fursad buy ah baa ku jirta insha allah guys waxa weeye waqtiga aan ku dheereeyay waan filaya waa inay soo gaabinayaa euro AUD waxaa ku jira fursad qurux badan halkan waxaa ka dhacay impulsive halkan waxa weeye corrective ay ku jirtaa inay waxa weeye saa buy ku aaday u badan tahay insha allah haduu ilaahay sidoo kale lacagta la yiraahdo waa ka faa'iidaysan kardaan euro card ayada laftigeeda waa ka faa'iidaysan kardaan ayada laftigeeda waxaa ku jira fursad aad u qurux badan haddii waxa weeye zoonka la jabiyo hore test ah ka heshid insha allah fursad qurux badan waxa weeye buy waa ka faa'iidaysan kardaan guys aad baa inii salaamaya insha allah channelka subscribe saara insha allah waxa weeye kambareelkana waxa weeye furo si mar walba waxa weeye waxaan soo dhignaa u heshid aad baa inii salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh